maanta oo kale bishan lagu jiro October waxaa loo dabaaldegaa maalinta aragga. Marka waxaan rabnaa inaan isla fahanno qofka arag la'aanta dhibaatada uu dareemi karo iska hataa markuu qofka ookiyaal la'aan leeyahay uu dareemi karaa markuu ookiyaal qaato waxa weyn ee markaa iska bedelayo haddii xataa qofka qaliin u baahan yahay oo kale caad indhaha ka fuul caadka laga fiiqo qofkaas oo markaas arag helo kale qofkaas uu dareemi karaa. Marka waxaa maalintan ugu faa'iideysanayaa maalin ay tahay maalinta aragga in dadka markaana aragga aad ugu hooseeyo kale ilaa heer rajadu waa ilaa intee ma rajo ma jirto miya tusaale ahaan mar walba soo badanayso kale oo waxa qiyaasta ookiyaal jir lahayn waa technology kamid ah sidee noqon lahayd araggeena waa qiyaasi kartaa waxaa laga yaabaa in markaas la dhaho qofkaas waa camool oo anaga kala hadii ookiyaal la'aan ahaan lahayd qofkaas camool waa dhihi laakiin maadaama ookiyaal soo baxay technology ama qaliimo qaar oo casriyeysan soo baxay ama technology si balisho kale waxyaabaha aad ku fara badan soo baxay waxay naga badbaadeen in xaalad camoolnimo ku sugnaan. Sidoo kale dadka haddeertaan iyadoo ookiyaal jiro iyadoo mataqaanaa balisho ama qaliimada ugu fiican marka lagu sameeyay weli aan waxba arki karin weli waxaa jira technology mar walba soo baxay maalinta ka soo dambeysay baxayso haddeertaan waxaa jiro kale qalab marka qofka ookiyaal hadii uu haysto inta ku dhagsan karo oo haduu waxba arki karin xitaa uu akhrinayo wax markaas uu arkayo oo buwaagta iyo wax uu akhrinayo xataa dadka qaar xataa hadii qof soo istaagta qofka magaciisa u sheegayo marka waa uu nooc technology kamid ah ka qofka waxa arkeenin oo aan dhahnay qofka waa camool xitaa caawi karo si uu u noqdo qof mataqaana kaligiisa u istaagsan qof kale gacanta uusan qaban. sidoo kale dhaqaatiirta indhaha waliba takhasus kala duwan leedahay xitaa waxaa jiro takhasus marka ama dhaqaatiir u shaqo leh in mataqaana dadkaas oo haddeertaan technology-da hadda jirta aan caawi karin in ay garab qabtaan oo ay ka dhigaan qof mataqaana kaligiis istaagi karo oo qof kale u baahan sida haddii ay jirto kala weyneysida iyo waxaa marka laga soo tago in ay sii karaan xataa qalabyo casri ah xataa qofka ay bari karaan si nolol maalmeedkiisa u guto. Marka mar walba rajo xumo ma jirto technology-da alxamdulillah caafimaadka indhahana aad ay mar walba u garab istaagtaa bulshooyinka adduunkaba aad ay u garab istaagtaa si qof walba araggiisa nimcada Ilaahay uu siiyay ilaa heer ugu faa'iideysan lahaa. Marka muuqaalkan waxaan ku soo gunaanadayaa qofka sanad walba haddii xitaa caafimaadka indhihiisa u dareemayo mid wanaagsan inuu mar walba sanadkii ugu yaraan hal jeer baaritaan sameeyo si uu uga hortago cudur marka xilli dambe la fahmo. Soomaali ahaan anaga waxaan leenahay kaliya xanuun iyo culays iyo dhibaato markaas uu dareemayo uu haysto inuu aragga tahay laakiin waxaa jira xanuunada ugu khatarsan indhaha waxba aan dareemayno qofka caadi u taho kale wax uu dareemay ilaa heer dambe wax laga gaari karin. Marka qof walba ha isku day haddii xitaa waxba uu dareemaynin in uu sanadkii hal jeer baaritaan sameeyo. sidoo kale waxaan rajeynayaa insha Allah dadka mataqaanaa camoolnimada la dhibanna in la garab istaago oo mataqaanaa wax walba lagu garab istaagi karo in la siiyo. aadaan u jeclahay in dadka mataqaanaa hal qof haba ahaaday oo araggiisa culays ku qaba inaa caawiyo oo mataqaanaa at least intuu wax arkayo wax ka fiican uu arko waa wax farxad leh. qof kale oo dhibaato ku soo socota in laga hor istaago oo laga caawiyana waxyaabaha ani ahaan shakhsiyan aad ii farxad geliso sababaha mar walba aan wacyigelinta xagga aragga dhan walba aan u xoojinayo. waxaan idinkaga rajeynayaa in mataqaanaa qoysaskiina sida markaa dadka aad kaga roontiin xagga wacyigelinta aad sii gaarsiisaan intii aad ku awoodiin. intaas ayaa muuqaalkeena kusoo gabaynaya waxaan dirjaa caafimaad iyo indho fayow.